waxaa maalintii labaad galay wadahadalada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya kaasoo si habsami uga soo magaalada Istanbul. shirka labada dhinac ay isku hor fadhiisteen ayaa mid aan la fududeysan karin. waxaa guulahayd in Somaliland ay ku guuleysatay muddo 22 sano oo jirtay ay ku tallaabsatay arrimo taariikhi ah sida dhismaha maamul dawladeed kala dambeyn, nidaam dimuqraadiyadeed iyo waliba dhammaan astaamiyada looga baahnaa oo ay buuxisay. xukuumadda haatan talada hayso oo ku timi rabitaanka shacabka Somaliland iyadoo ka duulaysa rumaynta yoolka aynu beegsanano waxa ay dariiq cusub u jeedeen hanaanka diblomaasiyadeed ee dalalka adduunka lagaga raadinaya aqoonsiga Somaliland. dadaalkaasi waxa ay keeneen in ay Somaliland ay ka qayb gasho shirkii ay dhowr iyo kontonka dawladeed ka qayb galeen ee magaalada London lagu qabtay 23 bishii February ee sanadkii 2012 la soo dhaafay, kaasoo lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya laguna casumay Somaliland iyadoo ka duwan dalkii la isku oran jiray Soomaaliya. qodobada kale ee Somaliland ka faa'iiday shirarka waxaa ka mid ah in kaalmooyinka qaran bixiyaashu ay siiyaan wixii la oran jiray Soomaaliya ay Somaliland uga jiraan qaybtooda, taasoo ka mid ah himilooyinka qaran ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ay samaysay. bishii 26 sanadkii 2012 waxaa markii ugu horeysay taariikhda tan iyo markii jamhuuriyadda Somaliland madax bannaanideeda la soo noqotay soo fadhiistay oo yeeshay kulan foolka foola laba wafdi oo ka kala sooday Somaliland iyo Soomaaliya isla markaana si amba qaaday qodobkii 6 ee baaqi shirkii London ee 23 February. furitaanka shirkaasi ayaa ahayd laba dhararood si weyn looga dhor sugayay waxa uu dhali doono shirkan ugubka ee isku hor fadhiisteen Somaliland iyo Soomaaliya markii ugu horeysay rubuc qarni ku dhawaad. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Mudane Maxamed Biixi Yunis oo warkacay wafdiga Somaliland uga qayb galay wadahadaladaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay in wadahadaladu ay galeen maalintii labaad. waxa maanta mahadno ah anako maalintii labaad ee wadahadalada galay annaka iyo groupkii xamar ka socday wadahadaladii oo aanu joojinay la saaka oo doonayay in consultations iyo wadahadal gaar yeelano sida ula socotaan annaka qadiyadaydu waa qadiyad muhiim ah waa mid ummadda Soomaaliland ogsoontahay waa mid ay goosatay inay gaar isu taagto waa mid aan laga noqon karin sida oo cad oo qayaxanayaan ugu sheegnay mana rabno inay waxaan cagta jiidaan sidaas oo filanaa iyaguna inta badan jeceliinay waxaan sii socdaan hase yeeshee waxaanu aad iyo aad ugu sheegnay inay Somaliland ayna waqti badan oo lumisahayn 23 sanadood bay gaar u taagneed. waxaanu sugaynay dawlad lala hadli karaa inay soo baxdo. maanta waxaad moodaa dawladdan inay tahay dawladda kaliya ee transitionkii ka baxday sida awgeed baan wadahadaladan la bilownay. waxaanu aaminsanahay wadahadaladan inay lagu gaari doono guushaas oo aqoon istuudaga Somaliland. waxaan u sheegnay walaaladayo inay adag tahay inaan aqballo qofka aan kilomitir xamar xukumin inuu yiraahdo waxaan ka talinayaa saylac wax suuroobayana ma aha. waana u sheegnay ayna way ogsoon yihiin mana dhici karto inay Somaliland ka noqoto gaariso taageedii waa wax ummadda reer Somaliland goostay qof ka noqon kara iyo qof bedeli karaana ma jirto. waxaana la doonayaa inay ogsoonaadaan oon madmadow ka gelin Somaliland qadiyadeedu waa mid ay goostay shacbiga reer Somaliland qof bedeli karaana ma jirto. Somaliland taladeeda ummadda Somaliland baa goostay ayana waan u sheegnay wax qarsoodiya maaha. madaxweynahooda iyo wasaaradooda iyo dawladooda iyo shacbigooda waxaanu mar labaad doonayaan aan u sheego anigoo ah wasiir khaarijiga in Somaliland qaraarka ay gaariso taaga ah in mid laga noqonayo aanu ahayn. waxaanu doonaynaa inay ogaataan hadaa shacbiga reer Somaliland tihiin waa qadiyad ummadda reer Somaliland goostay. wixii soo maray way ogsoon tihiin halka maanta ka joogtaana waa ogsoon tihiin waxa qabsateen caalamku waa ogsoon yahay. marka waxaan idinka codsanayaa gabi ahaan hadaa reer Somaliland tihiin ina aamintaan midnimadiina qarannimadiina gooni isu taagiino waana imanaysaa wax laga warwaraana ma jirto.
wadahadalladan ballaaran ee u dhexeeya wadamada Somaliland iyo Soomaaliya oo galay maalintii labaad ayaa qaar aad u xasaasiya waxaana uu midka kale uu ku riixayay in qodobadiisa uu shirka la inuu ogolaado wadanka Turkiga oo isagu markii saddexaad marti gelinaya wadahadallada u dhexeeya labada wadan ayaa hoteelka uu ka soo wadahadalladu waxa uu xaqiisa hore suray calamada labada wadan. wadahadalladan ballaaran ee u dhexeeya wadamada Somaliland iyo dalka Soomaaliya oo markii shanaad ee si rasmi ah isku hor fadhiistaan labada wadan ayaa si rasmi ah uga soo maalintii labaad wadanka Turkiga hase yeeshee dalka Turkiga oo isagu markii saddexaad marti gelinaya ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in marnaba aanu soo faragelin doonin hase yeeshee uu fududeyn doono waxyaabaha ay uga baahdaan. Axmed Saki Daahir Xasan, telefishinka qaranka Somaliland, magaalada Istanbul.